Caruurey, kani waa Cabbaas. Wuxuu soo ag fadhiistay ayeeydii oo murugsan. Wuu yaaban yahay Cabbaas. Wuxuu rabaa inuu weydiiyo ayeeydii maxaa ku dhacay. Ayeeydii waxay u sheegtay inay quraankii akhriyi kari laadahay oo indhaheedii daciif noqdeen. Waxay u sheegtay inay ilaalin jirtay akhrinta quraanka. Bisha Rabadaanna si gaar ah ay u ilaalin jirtay maadaama uu yahay bishii uu quraanku soo degay. Cabbaas yara wuxuu go'aansaday inuu ayeeydii caawiyo. Kitaabkii ayuu ka qaaday. Cod dheer ayuu ugu akhriyayaa si ayeeydii u maqasho suuradda uu akhrinayo iyo aayadda uu marayo. Ayeeydiina ay uga daba akhrido. Caruurey, Cabbaas yare 2 ajar ayuu shaqaystay maanta. Maasha Allah. Ayeeydiina way u mahadcelisay waanay u ducaysay. Caruurey, halkan waxaa ku ciyaaraya Akram iyo walaashii Rayaan. Rayaan yar maanta Akram ayay ku dayanaysaa. Wax walba oo uu sameeyo way ka daba samaynaysaa. Akramna wuu arkay inay walaashii Rayaan tusaale ka dhiganayso oo wax walba oo uu sameeyo ay ka daba samaynayso. Hadduu ciyaaro way ciyaari, hadduu wax qorana way qori. Akram wuu fikiray, waxaanu ku soo dhacday fikrad wanaagsan. Wuxuu rabaa Akram yare inuu noqdo tusaale wanaagsan, ajarna uu ka helo. Kitaab quraan ayuu soo qaatay si uu u akhriyo. Walaashii Rayaanna way ku dayatay oo kitaab quraan ayay soo qaadatay si ay u akhrido sida walaalkeed. Akramna wax fiican ayuu sameeyey. Qof lagu daydo ayuu noqday oo aad u wanaagsan. Maasha Allah. Caruurey, walaalihiina idinka yaryar tusaale wanaagsan u noqda. Wax walbood samaysaan way idinku dayanayaan.